إلهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي كريم ما هذا إلهي رحمتي نوفر ما هذا وإلهي الشكر إلهي قدنا سي إلهي سبحانه وتعالى نقول حريصه ما أنت واحد مودين جوجي ما أنت بلامي ميلك سوق الدقيقة لكن أبارتي ما يدمام أبارتي ما يدمام تذكير حوله يكنا مالين هاشين ما هيستان هلو بهاي نقول متكلم بالعرية هلو بهاي سيال بقولوا مليون بالو بالله أي UN 2060 الدوكا هندوك الصومالي ودين تودان لو بدو أو وحنا ما كنت أهلو بهاي هي وح مستقبلك تذكر حولك بحين حلو قبل لها وحاليا هاي دولة الصومال حرنا نظامك أو قبضتين ما في عنين إما كان واحد له بهاي هاي سيد العقتاب لو لبلن قاضي قيبتي هي الصومال هي اللي هي إن ويل كيدي مخانيسم كي لدي أرجعية وحكلنا لنا الدولة ده مركب كهاد يمي أي مرات وكاني راشيكة وينسى عدالة الله قيبية ورسول قال للجلين تكينوا قاعد شحن بهايسة ولا أنت لا أنت وهالكن أدي أنا كنت أرجع على نوع مهاد نوع دانيرتي سمدون إس أبابولي اللي حدا جوال بيسك أبابولي دورتي حسبك عدالة دريالك أنا قاعد فيها waxaan u mahadnaqayaa dadkii reer Boorame ururada reer Boorame iyo degmooyinkii reer Boorame xaafadihii iyaguna doortayna xusbiga gacan siiyaan ee ku soo biiray waxaan u mahadnaqayaa dadkii nagu soo dhaweeyay magaalada Burco dhawaanta ka nimi dooraad ka nimi yaa waa mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa dhalinyarta دنشر ما هاين إسوا أبا بشيء حفلة دردر قلين تعال يا أيها المعنى وحوي استدي للسمية 2008 كي أو USA كالعقد بحصية ولا قش كيني أصحابها حسبية قرن السومالنا وحيستدي قال صوص صاري in taageerada ucid ay tahay taageerayaashaas taageerayaal aan magaalaan saaye dhaqdhaqaaqin oo sal adag baa la yidhi iyagoo saartay waana runtooda mar kastaba strongholdka ucid oo hadda ka soo jeedaan 190 mar kastaba foodku way bixiyaan waxaan jecelahay maantana inay maalinteeni tahay dadka uu miyirsaday qabyaaladiisan ku ka keenay masuumaasiqiyo sankay ka keeneen qaadkii sankay ka keeneen maanta mustaqbal baa loo baahay maanta mustaqbal baa loo baahay waxay sheegay horta waalaya maanta shanta Soomaaliyeed xitaa Soomaalida qasku ka taagan eego marka la eegay per capitalka qofka inta soo gasha nolosha Soomaaliland baa ugu hooseysa adduunkana saddex waddan adduunka ugu faqiirsan bay dhahay Soomaaliland maxay noogu dhacday waxaas inuu waxa weeye dad qaranimadeedii bay 60 si hawl yar xitaa yarad kama inuu qaadan gabaadka daal soo celshadeena waa ogeydeen waxba inooma baxsan dad iyo xoolo magaalooyinkeeni waa la wada burburiyay maanta waxa weeye hadaba idinkoo og halgankii la soo maray mala walaatiid kama sheekeeye
halgan adag baa la soo maray inaan baa iga sheekeynay maalinta Mareykan shahaadad buu qaadanayay bahalkan calanka xunay Soomaali isku noqon meel kasta way joojiyaan jaamacadii bay keeneen calankii Soomaaliyeed inankii baa yiri macallin calanka hala qaado agteeda yaa waxa soo yeelay maxaa dhacay wixii hooyada way sheekayso hooyada marka ay umushay iyo week aan umulahay ayaa magaalada Hargeysa ku nooloo diyaarad la dhaco ka saan u qaxnay hooyada waxay u tiri 3 jeer baan ku fakiray si iyadu u badbaado in ilmaha turto iska turto culayskiisa way tuuri gaadhay buu yiri calankii la igu tuuri gaadhay agteeda kale ninkii Mareykanka professor waa fahmay uu ka qaaday meeshii wax la yaab leh maanta iska daa kuwii ay ina laayay caruurtoodii inta ilaaha waa la doortay ay maanta ku hamiyaan inay Soomaaliland isoo taagaan qaranimadiina ilaashada qofka halkan ku yeelan waaya haybad meel kale haybad ku yeelan maayo qofka halkan ku gaajooda meel kale ku dhergi maayo qofka halkan ixtiraam ku waaya meel kale ixtiraam ku waaya maayo waa maqliseen kuwii xalay talaha diyaarada noo soo dira si South Africa la laayay lagu kaajiyay inta wax qalfoofkooda meel u yaalo gasiiro qalfoofkeena yaala oo nagala baxay guriyaha reer leenooga isirnoo dil wax meel meedkooda yaala oo doonta inaga hubaan hotel lama arag waxayna tusaysaa ilaa uu shaqo waxa way walaalayaal taas qarankiina ilaashada maanta 25 sano aan jirnay wax badan baynu qabsan lahayn waxna waynu qabsanay laakiin marka la eego waxaynu qabsan lahayn waxaynu qabsanay waxa badan wixii aynu qabsan kar lahayn maxaana inoo keenay waxaynu keenay wax kale maaha waa hoggaanka ummadda hoggaanka kala saara ummadda hoggaan baa bedesha hadduu hoggaan uu yahay hamadiisu kursiga qabso oo markuu kursiga qabsay shaqadiisu dhamaanayso oo macallaaanayo yasaasu ma la isku meeraysanaya baanku inuu fishan yeesha kursiga markuu qabsada hawshiisu bilaabanta oo ajendihiisa ya keebaa ku madan tacliinta ku madan biyaha ku madan ad ku dhaqaaqta maanta waqti maanta dadka u badan waa idinka waa dhalinyartiina mustaqbalkiina gacanta ku haysata hawaye saddex musharax baa jira record baa jira qof kastaba wuxuu qabtay muxuu soo qabtay muxuu ku soo kordhiyay dalka intuu joogay Somaliland maanta waa broken society waa mujtamac burburay waxay u baahan tahay cidii qabi lahayd cidii isku hayn lahayd challenges badan baa jira ay ka mid tahay Soomaaliya yarkay noo soo baayay caruurta la doortay noo soo baayay gaaladu ay lacag ka bixisay si loo doorto ya daafacay Somaliland ya keenaya اعتراف كده المودينو واحد impossible yahay waa very possible waa very easy laakiin waa loo hawl gelin day maxay galay inagii baan kala dhamaaneen bi umada waxay yeeyis haystaa waraaba iska celiso inaga waa isku maqan ka baxa ay solution ka baxa dhalinyartii is qabsada garbaha engineers baatiin wala engineers baatiin aantu xalay shay in jaamacad ka baxayo oo naasha ka xamaala oo shaqo kale waaye ayuu sanaadiiq qaada waa jaamici haduu jaamici xamaala kiimiga muxuu qaban doonaa kiimiga shaqo suudan iga soo weyn wada keen waa hodan inaan ku gaarsano waa ceeb weey inaan bariya tagna waa ceeb weey inaan badarkana ceeb weey
إن هبليه إنه حمر تجان عيبوي تجوا إن الفليل المدحوية حمر كشقيس عيبوي إن أنت الفليل ما كجوي شفته ولا الحنان شفته عيبوي وين سوء عشان دتكنا وين شربت لي سوء عشان شربت لي وين سوء عشان شربت لي قعنت يدك شفته وحوي ما أنت وحلقة هذا هي الدار إلى الأوديار قروية إن كاركي ده هو كلا بطاء هو كلا بديان بكان يديسكو ما أنت فوتك سيد التاجر شو وقاتان عد بحنت أبحية هذا ما أنت عد بحنت قادم ويدان أدوك هو خسارتين أنا وأنا خسارسين مستقبل كان هو كارك اللي يقول دونية برلمان إمبيده هذا كارك قادم ويدان إمبيده ولا تقبلنيه هذا وكيل هذا مرجع حوي تدكين أبونا يصير دايا أرضاقة قد مديسان قبض قد مديسان oo ardaydiina dhanka kooban dadka soo wada daadgureeya kharashkan uu iska yaraanaya halka arday kastaba 35 ku bixin lahaa ardayga waa haduu 15 ku bixiyo oo collectively u soo daadgureysan dadka uu iska yaraanaya marka idinku hogaanka qabto idaga dhaqankii garanaya niman 30 sano joogay Yurub iyo Mareykanka wuxuu ka soo qabsan waayay قد في الله ضحى هكذا مشاعر كيله هاي هكذا كيله هاي عقاشي اللي نقبض وحنا قد إذا قاله كواس حدي قبل ما يدخل أبصار الشغالين إذا قال يديش الصوت نصين مقنعه إنشوا مكينين تيفي مكينين شريد مكينين وحنا بدون ضرب لي عبد القاسي عقاشي بين وقع ماشان قد إذا قاله أو المحاور هذا حور من إنه هو صوت أبصار كيله يرسمي شوي لا إذا دلائلتي ولا بحار أنت لا بحار عن طولها إذا كم عم سأل هذا عليه ولا واحد ما أنت تولد ولا بقى قلدوا أول ما يسمع يسي مع إنك سوق قال بدن تهاي بدو حوي نن آدي آدو هناك سنايو عبد الرحمن وانتو بانكر وقولي كتير ونيتوا وأنا كده نوي لاني كده إنفليشن كده لاني كده سو ما الناس بانكا ودكوا بانكا كسنين أيي قولي أقونتي كسارين أقونتي هذا كسارين والغير عمل الدور بعض يقول حوي لا احترامه فاملية لو يرو لو عقل عليه هذا ميل كانت شغال ميل كله بدله هذا كان مثل لون الصغير هذا إنه ضد كينه ولكن ما كأجوبة أنا عاينه ولا احترامين دوران وتشيل السومال وحي واجد تلمان دي لموت كل حواسك بحسن وعي ولا كسنة موت طلعنا وحوي نيكي لو تشري قولي ما له تعاينه بطكتي الدوي كسيتي يا عينه ما له ديدي أنا أقول الإيد دي أنا تقوم تقالي قبيلي وماشى مقاحدة هنا تلقوه هرجوك سيد موتي وحي بيسوع دتك الدولة دي واحد غلط كل حما يسوع الناس ماها معارضك أنت وحي حق ليهين قف دوسي ده ومعاولة سده إلى يسور تاجه توقف الحم بأهل ما دولة حلنا هاي دتك كل ميل الله أفضل ما يه هرب نوش واحد من الدولة ومشرح يعني موصب بحيه دي تيجي وشغيني أو كل مكان كان يربور كتجوها فحلو ليه هاي بابورتي على وين شري محيه تخان كور بكريو موصل ككع بوليتي لا طبعا أنا موصل شقيسين الدولة شقيسه دولة ده نسكار كنا ده ماشي بوسع ده لاين دي تيجي وشغيني وسير كي وشغيني
معناته دولتنا كوينا وحين وركات دولتنا إياه كلا صار مصبيح نندنا وسيروح يقولي ما لنا كلا صار ما يو قولها دحين وحنا كتشرنا كل مية هذا بقى كل مية شغال هذا بقى كل مية وتقول شغال يقارن كنود داوي هدي أنا جوتشينا واحد يشيء هدي أنا جوتشينا واحد يشيء مدحوينا وحنا كو قصبنا إنه الدولة لو نيهاي أو دحدا إنه لسه وسيرة دبوا يا موسى ده هرع كش قوليس دحاول شقيا لكن لعقت الدولة ده باورتي الدولة ده باورتي الدولة ده على ثورة الدولة ده إنه موسى نقول ترتمه إذا نخاتك تشوفناه لبي سيتك العقت ودي هايستي دولة نسألون إلى ما كل داري وأنا قرأت في سنة على بالنا ولا لا واحد نوصل واحد challenge بدل بيننا يلا واحد نوبهنا إن لدت كاملة وحوي الدمر كان ميكروفون ستاع عيتمية وحوي أنا كبحان هبلا وان شاء الله هبلا هنا في عين ميكروفون كيسكاي العالية انت يا هذا السنة الميكروفون ستاع نعرش كوزو دقيسة نعرش لأنه هو عرب ومسلم في الشوكاوي تاسو وين كان كحشود يدو كواري حشود كينا هايست waxa weey waa maanta waxa inoo yimi laba mashruuc oo waaweyn mashruuca DB World in shalay tow dabaal deginay waxa imanaya koombaniya badan shalay afar shirkado waaweyn oo imaaraadka ah waa markii uu horeysay wiliga nin bilyaneer ag fadhiisan bilyaneer bilyaneer ismaail oo imanaya waa oo dadka maal gashanaya wadanka oo wala waliba injineerada ku uu horeeyay noqonaya dhirgii hadii aad hayeen injineer dhismayaasha wadooyinka airportka bisha June hadii aad yiraahdo soddon baa imanaya company baa imanaya hadii aad yiraahdo oo ay maskaraysanaya anagu waxaan keenay SKA laba kala soo wadna insha Allah ta'ala laba kala ayuuna imanayna oo abaanu noqon insha Allah ta'ala abalaaba jidisho agaano lacag qaadan mayne dalka invest gareeyaan leenahay macnaheedu intuu ku halka yimi ilaahay buu ogaana ku dheelay ka bixinay akaas ay weydiya maxaa ambassador hotel laana waxa weeye inuu inaga maal gashadaan dalkeena weey marka waa inaad soo dhaweysaa tustaa inaad laaluushka doonin waxaan doonayaa insha Allah ta'ala inay nidaam wanaagsan oo hirgeliya in dalka la maal gasho u sahla in sameeyna doonaa insha Allah ta'ala waxaan ugu bishaareen macallimiinta waxaan ugu bishaareen macallimiinta waxaan ugu bishaareen inay noqon doonaan shaqo la isku laayo oo loo kala dheeriyaan noqon kala bidaha karo shaafi amaamseena dadka talent kala baa doonayna insha Allah ta'ala uqaashana waxaan siin doonaa lacag fiican oo inaan aqal baan wax garanayaa oo ay ku nasbaano afishaanada ka baxaan insha Allah ta'ala yaadi waxaan jecelahay shaqaalaha waxaan jecelahay wax ilaaluush ka baxaan mushaar oo ka dhigan karo oo account ka sameeyan karo oo tourist ka tagi karo dalxiis ka tagi oo yeeshan doona insha Allah ta'ala maanta waxa weey maanta inflation haysa ayaa abaarta ka xun inflation maanta haya waa cancer ciidankeena qiimaha leh ee nagu degadaan ee naga baqo maanta lacagta la siyaadee $150 qaadanayeen waxa la waxay jirayaan ma jirto dawladda waxaan leenahay waa intaan iman anaga dhigin doonee haddii la ilaahay hala kaba baan insha Allah ta'ala haddii aan ciidan samaysan la inaga baqo dawladnimo maslaxaad iyo walaala lagu dhiso haybad baa lagu dhisaa walaal haybad ciidan haybad leh
oo qaadku mamnuuc ka yahay qaadku mamnuuc ka yahay ayaa wey dowladda Ethiopia walaalayaal dal aan saaxiibnaba wey marketkeeda waa tan doonina wey qaar meelahan ka maqlay 19 balance 19 balance oo waxa shisheeyo ku soo hadlayaan ba wey wax dalkooda dad qofka uga sheekeynayo inay horteen ma waxa weeye Ethiopia Shipping Line Agency waxa ilaa jirta Ethiopian waa shirkad DP World oo kale DP World shirkeeda 65 ah si ay u hesho marketka Ethiopia wayna Ethiopia interest ay tustaa Djibouti waxay leedahay railway bay leedahay highway bay leedahay dekedeedu waa modern wala tartamaya maxaa ku soo jiidanaysa marketka yani marka carabtu wana ma ilbaxo adduunka dhahaysay DP World the share bi ka iibiya and you have right inuu share keena company kale ka iibin karna xitaa was telesom oo kale hadaad share leedahay ama dahabshiil share ka iibin karta laakiin Ethiopia laga waa Ethiopian agency waxa weey nimba maadan sheekaysan habeen isku nimay German safaaradda German baa mishteriya oo wuxuu yiri marka uu ka soo qaadayo wiishku containerka ilaa uu gaariga saarayo $1000 marka la saaro gaariga ilaa aad sabna waa $2500 containerku waxa uu tagtaa Ethiopia from Djibouti $3500 waxaan ku yiri umad badbari kale soo dashid wixii yiri umalihi ikhtiyaaro Ethiopian Shipping Agency ayaa iyadu distribute garaysa oo noo ogolaata halkan ka soo dejin tiiba DP World share ka bixis that means waxa weeye shipping line waxa ina xaragameen 30% chamber 50% Djibouti amba gudsiyeeda ay noo soo duugdooyaan Djibouti ciriir kuma aho Ethiopia to digital ayay koraan dhaqaalahoodu 17% 18% ayuu koraan marka waxa markaas sameeyay middle class ka soo baxaya gaajada oo meel dhaxaymanaya markaas demand-koodu uu sii badnaanaya inta u baahnaan kala hore in ka badan u baahaya waddanku inuu develop gareeyo industrialism noqonaya laakiin waxa weeye inaguna waa inay noo furaan albaabadooda ma ina wixii inuu koodbaan ku galaan waa ina wixii ka soo geliya la cashuur baa la saaraa shaadka la cashuura 720 milyan baynu ka helaa caqadka sanadkii iyagoo soo dirayana 320 milyan bay ka helaan hadda way iyagii diriyeen marka baaha ku qaylisaan ayna badoobeeyeen foolxumeeyeen waa inaynu adhaxda ka jibnaa oo qof la cuni kari waayo hadda mardeyn kari weeyeen marka Ethiopia waxay u baahanayeen inaan de ay noqotaa magaalada saayba mishariga min dhinac ka ranayaan noqonay mid de siman inuu noqdaa way taas waxa ku imanaysa dawladdu negotiation sameeyay trade negotiation marka ayaan dalkiina la nacaynin yaan Ethiopia lagu xuquuqinin Ethiopia waa timarkii la garaacay aan gobol ka dhiganay dhulkeena aan tagnay waadiga shay taarkii magulaha hayso wasaaraha Ethiopia hubka laga qaado Soomaaliya qayb laga qaado si uu farbaxsanayn inagu hadaynu faa'iido kalena way cawaadeen ay dadka soo diray hayaay Ethiopia qaatay war Ethiopia waligeed challenge Ethiopia Mareykan Ingiriis kuma kala socno qofkii xuquuqdaada ay ku diliya waa kuwa cadowgaan Ethiopia dayarada kula dhacday amina ku dhigtay magaalooyinka dhulka dhigtay maxay ku hadlayaan meeya in la hadlaan mayna sheegtaan bay ilaahay ku gaariyo marka walaalayaal yaan idin isticmaalin doorashadii yaan idin isticmaalin waqtiga afmishaar ugu dhamaaday waqtiga aqoonyahanka bilaabtay qof kastoo aniga hayna seexeynaa aduu nasteexayso
si dalkaagu nabad u helo, si dalkaagu mid u helo noqo, si dalkaagu horumar u keeno, si gaajada kaga baxno, si tahriibii u joojina gacantaada ku taala, gacantiina ku taala, gacantiina maanta taala. aniga marka ciid kale ii weyn waxay laba jeer u dhacay ma ceeb baa dhacday ku waa tarawih baa tahay odaygan imka Nigeria afar jeer u dhacay hada waa ka gaaray himadiisa himada waa ka gaaray waxay doo iga filayaan xamar taga markan laba jeer dhacay aanu talaaqay idinka doo insha Allah inaynu mustaqbal idin sameeyo mustaqbal idin sameeyo شلنا أنا تكبر كي شيء تكبر عرب كتير دولي إن شاء الله تعالى. مركوا يا ولما هالسنتين مستقبل في عم بالنا هاي دل كان الأركيس مربو جمعينا غلق إن دحملي ما أنت عيد ديني بين هاي سنة كي نقول صوت دون ترى عكر مريض دون السيد محمد زياد السيد عيد مركوا كيسة دل كين دافع dalkiina daafaca qabyaalada ka taga qaadka ka taga xaasinimada ka taga isticlaada walaalayaal la ilaaha illa muhammad rasuulullah allahu akbar allahu akbar taasayno balana walaalayaal kaarka qaata gudida abaabula waa 8 July ayay bilaabisaa waqti ba haysataan talada gacanta ku dhiga dhalinyarta ana wixii tala waa intuu siyaadalaya wixii commission iska xino waa idinka caawinaya wixii dawladda waa idinka caawinaya wayna kaas barbarka ka baxda waa bakeela cuneen wayno aynka salaamu calaykum